taageerayaal fara badan baad leedahay guud ahaan deegaanada Soomaalida oo dhan waay Djibouti Somaliland Soomaaliya NFD dhammaan waay GDSI waay badidooda waxa ka dhacaysa doorashooyinkii madaxtinimada waay shacab fara badan oo ku taageerana waad ku leedahay waay maxay tahay fariintaad u diraysaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogto shanta Soomaali oo dhan waan salaamaya ma sha Allah Home Cable TV-na waan u hambalyeynaya uu gaaraa intaba waa TV international Farxan Xaaji Cali iyo shaqaalihiisa iyo ayubu hor fadhiya iyo shaqaalihiina waa aad baan u salaamaya ma sha Allah waxaan kula talin lahaa reer Djibouti baan ugu horeysin lahaa ma sha Allah waan idin hambalyeynaya nabad iyo nolol fiican baa haysataan dal qurux badan baa haysataan nabadiina iyo barwaaqadiina iyo wanaagiina ilaashada oo ha iska foodaynina ilaashada hadda istiraadaan wax bedelana wax wanaagsan wax ku bedela baan kula talin reer Djibouti dawladda deegaanka Ethiopia Mustafa Cagjar iyo xaaskiisaba ubax aad baan u salaamaya ma sha Allah waa madaxweyne qaaliya fikirkiisa iyo wuxuu soo bandhigo bulshada dawladda deegaanka waxaan lahaa ku taageera ma sha Allah waa nin wanaagsan Somaliland doorashooyinkii baa soo socda bulshada reer Somaliland ay qiimaha badan leh waxaan aad ugu la talin lahaa inaanay dooran qof qabiil inaanay ku dooran qof dalka iyo dadka wuxuu qabanaya oo caasimada Hargeysa la ku xidhaya oo biyo soo sameynaya wadooyinkan jaamka kala sarreysiinaya doorta oo haydin ka hagaajinayo qashinkeedii ka xaadaya saasaan oranaya horta Soomaaliya waxaan oranayaa ummadda Soomaaliyeed waan idin jeclahay meel kasta joogtaan aadna waan idin salaamaya labaan idin kula talin lahaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa madaxweyne aad u qaaliya wax badanna uu idin qabtay anigu tala ahaan waxaan oran lahaa ugu celiya dib u doorta kow haddii indhuhu idinku bateenaad qorshe kale keensataan oo aad leedihiin isaga sidhaa ka bedela isagu wax weyn buu qabtay Soomaalina waa ninka jeclaysiiyay kursiga iyo dalkaba hadday istiraadaan bedela cida ku bedelaysa khayraha noqon aad baan ku salaamaya taraf fiican baan